بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة إليستي الكسر دواد قيبتي اللبات أي طريق للسيد محمد عبد الله حسن habeenkii dhaweyd waa taa idinkaga tegay tegistiisii xajka iminkana aan idinkaga ambaqaado halkii aan idinkaga tegay. waxaa caado u ahaa wadaadka iyo ninka waayeelka ah oo magaca ku dhex leh dadku uu ku dhex nool yahay inuu had iyo jeer xajka hamiyo. sidaa daraaddeed kolkuu sheekh maxamed sano soddonaad ku jiray wuxuu u socdaalay dalka sacuudi arabiya si uu xajka usoo guto diintan usoo korsado. waxaana sii raacay koox culimo ah oo reer magaaleed u badan. lama caddayn karo inuu isaga madax u ahaa iyo in kale. waxaase kooxdaasi ka mid ahaa laba abtiyaashiis ah, xaaji aadan siid iyo obsiye siid. waxaa hubaal ah raggaasi qaarkiis inuu isaga ka da'weynaa kana cilmi roonaa. tiradooduna waxaa lagu sheegay 13. hase ahaatee magacyadoodii waa lagu kala ceyray. qaarkood waxay ku dhinteen maka iyo madiina oo maysan soo noqon. qaarkoodna waxaa lagu dilay dagaaladii iyo jihaadkii ka socday waddanka. qaarkoodna waxay ku bayxaameen lama ogaa. sheekh maxamed hadduu xajka gutay wuxuu isku dayey inuu culimmada maka joogta cilmiga ka kororsado. waayadaasna ninkii xaramka soo galaa intuu doono ayuu joogi karay, xeer u diidayana ma jirin. dabadeedna culimo badan oo reer maka ah iyo kuwo kala duwan oo dalalka dibaddiisa ka soo xajiyey ayay isbarteen. sheekana waa ay dhex martay sawirada maka iyo madiina. arrinta weyn oo beryahaasi socotay oo culimada iyo dadka kaleba aad afka ugu hayeen ama laga sheekaysanayay, sheekh maxamed dhagihiisa ku maqlayay waxay ahayd dagaalkii ka socday suudaan oo uu maxamed almahdi abaanduulaha ka ahaa. culimo badan oo dariiqooyinka kala duwan haysatana oo jihaadka iyo fadligiisa had iyo jeer falanqayn jiray waa joogeen. iyadoo arrintu sidaa ahayd, inkasta qof goobjoog u ahaa aanan arag, haddana waxaa hubaal ah inuu si rasmi ah ugu tegi jiray kana qayb geli jiray fadhiyaal caadi ah oo lagu qaban jiray masjidka sayid maxamed saalax oo reer suudaan ahaa. dariiqada saalixiyadana abuuray, madaxna uu ahaa. dabadeedna sheekh maxamed saalax iyo xertiisa baa la isbartay. taasina waxay dhaxalsiisay inuu u riyaaqo dariiqada saalixiya oo ahayd laan ka mid ah dariiqada axmediya. dabadeed wuxuu qaatay saalixiya oo jameecadeeda ka mid noqday. sheekh maxamed saalaxna fadhiyo gaar ah buu la qaatay si looga wada hadlo dariiqada saalixiya sidii loogu faafin lahaa dalka soomaaliya, siyaaradana maka loogu soo diri lahaa. lama oga sheekh maxamed cabdille markaa ka hor dariiqaduu ahaa ama haystay. hase ahaatee dadka qaar waxay leeyihiin wuxuu ahaa qaadiriya, inkastoo aan dalka dariiqooyin kale soo gelin, haddana lama hubo. markuu xaaji maxamed xaramka gudihiisa joogay oo sheekh maxamed saalax xer u ahaa, xagga diinta ha ahaato, xagga dariiqada saalixiyadaasi ha ahaatee, amar buuxana ka helay inuu sheekhu dariiqa beri soomaali ka noqdo. wixii talo ah ama dardaaran ahaana ay kala dhammaysteen. wuxuu u soo kacay dalkiisii hooyo. markaasna wuxuu gaaray darajooyinkii xagga diinta ee dalka soomaaliya lagu yaqiinay, tii ugu koraysay, kuwaasoo kala ahaa macalin, aw, wadaad, xaaji iyo sheekh. lama hayo wax caddaynaya markuu maka ka soo noqday inuu dooni soo raacay oo badda soo maray, iyo inuu baadiyaha yamaneed soo maray, iyo inuu meel kale u kacay. dadka qaarkii waxay qabaan war kutulkuteen ah inuu masar tegay. taasna lama hubo. wax raad ahna looma hayo. midda aan muranka ka joogin waxay tahay dhinac kasta ha ka yimaadee inuu socdaalkiisii cadan soo maray oo dhowr bilood joogay. amintaasna soomaali badan ayaa magaalada cadan deganayd. dhaqaalaha dalka soomaaliyana aad buu cadan ugu xirnaa. sayid maxamed iyo dekeda berbera waxay ahayd magaalo fil weyn oo magac dheer
1884 ayaa dowladda Ingiriiska maamulkeeda qabsatay. Turki baana uga horeeyay oo waxay ka dhiseen masaajido iyo meelo cilmiga lagu barto diinta Islaamkana tusaale u ah. waxay kaloo ahayd magaalo ganacsiga adduunka caan ku ah, badda casna fure u ah. xagga barigana aan magaalooyinka kale ka xigin adari mooye. Soomaalida badankeedna magaalay u ahayd oo meel kasta waa uga soo safri jireen. sidaa daraaddeed ayaa waxaa lagu tilmaami jiray ama ay ahayd magaalo badda iyo barigaba u furan oo culimo iyo caamo nin walba yimaado, gaar ahaana culimada cilmi doonka ahi usoo tawaasido. Xaaji Maxamed intaanu imaan waxaa magaalada Berbera joogay guuto culimo ah oo dariiqada qaadiriya u badan. inkastoo dariiqada Axmadiya ay dalka Soomaaliya xoog ku lahayd, haddana geesta waqooyi itaal weyn kumay lahayn. in yar oo laanta Adaraawiya ka mid ahayd oo Berbera joogtay mooyaane. Xaaji Maxamed oo dariiqada Saalixiya wata ayaa cadan dooni ka soo raacay oo wuxuu ka soo degay Berbera. war lagu kalsoon yahay wuxuu sheegayaa markuu xeebta yimid oo damcay alaabtiisii inuu qaato ayaa nin Ingiriisi ah oo dekada ka shaqaynayay ku yiri, alaabta canshuur ka bixi. adoo canshuurtii bixinna alaabta qaadi maysid. taasi Xaaji Maxamed waxay ku noqotay layaab iyo fajiciso. hase ahaatee wuxuu ku yiri, adiga yaa canshuurta kaa qaaday markaad halkan ka soo degtay? waddankase ma adaa leh, maxaad canshuur iiga weydiinaysaa? gaalkii wuxuu damcay inuu ninka amarkiisii diiday xiro. hase ahaatee turjubaankii iyo rag kaloo oo meesha joogay ayaa ka maslaxay oo waxay yiraahdeen, wadaad waalan waaye iska waxaa la leeyahay magaca la yiraahdo Maad Mulla. halkaas buu ku baxay. gaalkii isagoo hadalkiisa la yaaban ayuu faraha ka qaaday magaalada Berbera 60 sano ka hor. Xaaji Maxamed wuxuu degay Berbera wuxuuna guursaday afal oran jiray Barni Xirsi oo u dhashay caruurtiisii wiilkii ugu weynaa Mahdi Sayid Maxamed. wuxuu halkaa ka abuuray majlis dariiqada Saalixiya leedahay oo ijaasada waa hadal gaaban oo qofka la baro oo balanqaad ah lagu bixiyo. wuxuuna bilaabay wacdi iyo waano fara badan oo diinta Islaamka fidinteeda ku saabsan iyo ammaanta dariiqada Saalixiyada. taasina magaaladii waxay gelisay bulaan iyo xiisad hor leh. wadaadadii magaalada hore u joogay waa la isku maandhaafay, maxaa yeelay wadaadada qaadiriya ma ogolayn in dariiqo cusub waddanka la soo geliyo. hase ahaatee gadaalkii waxay noqotay in la wada hadlo, kutubtana la isku soo gurto oo mas'alooyin diinta ah la isla wada eego. culimadii markaa Xaaji Maxamed ka soo horjeeday waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdullaahi Caruus, Sheekh Ibraahim Xirsi Guuleed, Sheekh Kabiir aw Cumar aw Gaas Axmed iyo culimo kaloo fara badan. caawana intaas inoogu ekaato taariikhda qaybtii labaad ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. haween dambana waxaan idinkaga ambaqaadi doonaa masaajidadii Berbera ee Turkiga ka dhistay iyo wixii ka dambeeya insha Allah. adinkana waxaan idinka rajaynaynaa inaadan naga baqilin subscribe, like and share, misna aad gaarsiisaan ummadda Soomaaliyeed si ay u ogaadaan ay u bartaan taariikhda geesiga Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi